bismillaahi raxmaani raxiim kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal waa axad ay taariikhdu ku beegan tahay 30 bisha 8 ee Agoosto sanadka 2020 qodobada wararka maanta idin heena saaxiibayaal waxa ugu waaweyn xog ku saabsan madaxweyne Farmaajo iyo agaasimaha Niza ee Fahad Yaasiin oo qorshe halis ah u dejiyay doorashada maamulka Hirshabelle xukuumadda Nairobi oo aqbashay qaybo kamid ah shuruud ay dawladda federaalka Soomaaliya ku xirtay keenistii qaadka ee ka imaan jiray Kenya warar kala duwan oo ka soo baxay odayaal ka socday beesha Hawiye oo loo diiday inay u safraan magaalada Hargeysa iyo sababta ka dambeysay oo aan wararkeena ku eegi doono maanta heegan buuxa oo la geliyay ilaalada Axmed Madoobe ee sida gaarka u tababaran iyo madaxweynaha Jubbaland oo goordhow soo gaaray magaalada Muqdisho golaha ammaanka ee qaramada Midoobe oo war xasaasi ah ka soo saaray noocyada doorasho ee Soomaaliya iyo faahfaahin ka soo baxay ciidanka Commandoska Soomaaliya oo howlgal qorsheysan ku dilay xubno ka tirsan al-shabaab kadib howlgal ay ka sameeyeen Muqdisho iyo Jowhar waa hagaag saaxiibayaal intaas aad daawateen waxay ahaayeen qodobadeena wararka maanta kuwooda ugu waaweyn imankana ku soo dhawaada iyagii oo intaas ka faahfaahsan fadlan haddii ay tahay booqashadadii ugu horeysay channelkeena YouTube subscribe inoo saaro gambaleelka faro si aad u hesho xogaha iyo wararka aan alaab halkan soo gelino idinkuna saaxiibayaal aad ayaad u mahadsantihiin daawashadiina aad ugu mahadsantihiin muuqaalkana like inoo saara si dad badan oo saaxiibadeena iyo kuwa kale ahba ay u daawadaan mar kale soo dhawaada saaxiibayaal waxaan ku bilaabayaa maanta xog ku saabsan madaxweyne Farmaajo iyo agaasimaha Niza ee Fahad Yaasiin oo qorshe halis ah u dejiyay doorashada la filayo inay ka dhacdo maamulka Hirshabelle iyadoo ay soo dhawaatay doorashada maamulka Hirshabelle ayaa waxa soo baxay qorshe doorasho oo madaxweyne Farmaajo ka damacsan yahay maamulkaasi kaas oo fulintiisa loo xil saaray agaasimaha hay'adda sirdoonka Soomaaliya ee Niza loo yaqaan ninka lagu magacaabo Fahad Yaasiin Xaaji Daahir warbaahinta ayaa fahamsan in Fahad Yaasiin uu kulamo la yeeshay madaxweyne ku-xigeenka Hirshabelle Cali Cabdullaahi Guudlaawe iyadoo loo sheegay in dawladdu ku taageerayso in uu isu soo sharaxo madaxweynaha Hirshabelle taas oo uu qaatay kuna howlgalay taas oo ka horjeeda heshiiskii lagu dhisay maamulkaasi oo xilka madaxweynaha Hirshabelle loo qoondeeyay beesha Xawaadle halka beesha Abgaal loo qoondeeyay madaxweyne ku-xigeen qorshaha madaxweyne Farmaajo ee hirgelintiisa uu wado agaasimaha Niza ayaa ku saabsan in doorashada soo socota lagu soo saaro in Cali Guudlaawe uu noqdo madaxweynaha Hirshabelle taasina ay caqabad ku noqoto ama ay yareyso fursadaha murashaxiinta ka soo jeeda beesha Abgaal ee doonaya inay madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kursiga kula tartamaan doorashada soo socota ee 2020-2021 halista qorshahan xambaarsan yahay ayaa ah inuu keeni karo kala tagga maamulka Hirshabelle oo markii horeba ku dhisnaa khilaaf waxaana cad in beesha Hiiraan ugu weyn ay ka hor imaan doonto qorshahan iyadoona xaaladda Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe ay mar kale noqon doonto laba gobol oo kala tagaan sida markaasi Gedo iyo Jubbooyinka madaxweynaha Hirshabelle Maxamed Cabdi Waare ayaa go'aansaday inuusan xilka mar kale isku soo sharaxin taas beddelkeedana ay dawladda madaxweyne Farmaajo ay xil kale la raadinayso waxaana uu markaasi magacaabay guddi soo xulaya xildhibaanada baarlamaanka cusub ee Hirshabelle oo ay markaasi ka muuqato in xilka madaxweynaha loo wado Cali Guudlaawe waxa la yaab leh in siyaasiyiinta ka soo jeeda beesha Abgaal ay haddaba bilaabeen taageerada qorshaha madaxweyne Farmaajo ee meesha looga saarayo awood qaybsiga isku hayay ee Hirshabelle Hiiraan iyo Shabeellaha Dhexe iyada oo aan la eegin waxa ka dhalan kara xilligan oo kale bishii Agoosto 2017 waxa wasaaradda arrimaha gudaha xukuumadda Soomaaliya ee dawladda madaxweyne Farmaajo soo saartay go'aan ay ku sheegtay in kursiga madaxweynaha Hirshabelle ay ku tartami karaan musharaxiinta beesha Xawaadle oo kaliya taas oo hadda inqilaab uu markaasi ku socdo dhinaca kalena dawladda Kenya ayaa aqbashay qaybo kamid ah shuruud uu madaxweyne Farmaajo ku xiray keenistii qaadkii ka imaan jiray dalkaasi Kenya warar hoose oo helayna ayaa waxay sheegayaan in dawladda Kenya ay iyadu markaasi aqbashay qaybo kamid ah shuruudii madaxweyne Farmaajo uu ku xiray keenista qaadka ka imaanaya dalkaasi Kenya Uhuru Kenyatta iyo xukuumaddiisa ayaa waxay aqbaleen in baasaboorka Soomaaliga ah lagu galo dalkaasi iyadoo horey dawladda Kenya ay u diiday in baasaboorka Soomaaliga ah lagu galo dalkeeda kadib markii uu dilaacay cudurka COVID-19 balse waxa xusid mudan in Kenya dadka kale ee aan Soomaaliga ahayn ee wata baasaboorada kale
ay iyagu markaasi si toos u galaan gudaha Kenya markii uu dilaaca COVID-19 iyo haatan wixii ka dambeeyay. sidoo kale xukuumadda Nairobi ayaa aqbashay in markaasi diyaaradaha Muqdisho ka kicitima aada dalkaasi Kenya gaar ahaan magaalada Nairobi ay si toos uga degaan magaaladaasi iyada oo sheegtay in ay markaasi joojinayso duulimaadyadii mari jiray magaalada Wajeer ee dalkaasi Kenya halkaas oo dadka lagu baari jiray. dawladda Kenya ayaa haatan waxa ay u muuqataa mid qafiifinaysa mowqifkeedii ku aadanaa Soomaaliya iyadoona ganacsatada qaadka ee Kenya ay sheegeen in golaha wasiirada ee xukuumadda Soomaaliya ay kordhiyeen canshuurtii laga qaadayay qaadkii ay u iibgeyn jireen Soomaaliya balse taasi ay aqbaleen haatanna ay filayaan in arrimaha kale ee dhiman la fududeeyo. ganacsatada Kenya ayaa iyagu ka shaqaynaya sidii markaasi ganacsigooda uu mar kale dib ugu socon lahaa. markaana waxaynu eegaynaa odayaal ka socday beesha Hawiye ayaa loo diiday inay u safraan magaalada Hargeysa ee xarunta maamulka Somaliland. odayaal dhaqan oo ka socday beesha Hawiye ee isla markaana uu hogaaminayay nabadoon Maxamed Xasan Xaad ayaa loo diiday inay gaaraan deegaanada Somaliland iyadoo oo laga celiyay garoonka aadan cadde Muqdisho. odayaashan ayaa ku wajahnaa magaalada Hargeysa balse diyaaradii ay ka raaci lahaayeen Muqdisho ayaa ku wargelisay in Somaliland ay uga digtay inay soo qaado sidaas darteedna aysan qaadi karin. mid ka mid ah odayaashaas Muxyidiin Xasan Afrax oo la hadlay warbaahinta ayaa sheegay inay Hargeysa u aadayeen xalinta dib ay geysteen dhalinyaro ka soo jeeda beesha Hawiye oo ku xiran magaalada Hargeysa. Muxyidiin Xasan Afrax waxa uu sidoo kale sheegay in dadka ku xiran amaba dadka uga xiran Hargeysa qaarkood ay xabsiyadii lagu xukumay dhameysteen. sidoo kale waxa uu sheegay inay safarkooda Hargeysa ku wargeliyeen odayaasha dhaqanka iyo duubabka reer Somaliland arintaasi ay khusayso. dhanka kalena madaxda dawlad goboleedka Puntland iyo Jubbaland oo horay warar u soo baxay ay sheegayeen inay degayaan gudaha xerada Xalane ayaa warar madax bannaan oo aan xaqiijinay waxay sheegayaan inay degayaan qaybo kamid ah gudaha caasimadda Muqdisho. heegan buuxa ayaa la geliyay ilaalada hogaamiyaashaasi gaar ahaan hogaamiyaha maamulka Jubbaland Axmed Madoobe. madaxweynaha Jubbaland oo wata ilaalo hubaysan ayaa la dejin doonaa gudaha aqalka madaxtooyada Soomaaliya 18 bilood oo uusan wanaagsaneyn xiriirka kala dhaxeeya dawladda federaalka ah ee Soomaaliya aana kadib markaasi la filayaa inuu dhismo xiriirka Jubbaland iyo dawladda dhexe ee Soomaaliya. dhinaciisa madaxweynaha Puntland ayaa isagana degaya gudaha caasimadda gaar ahaan halkii horay uu u degi jiray Cabdiweli Gaas marka uu tagay Muqdisho. si kastaba ha ahaatee waxaa maanta la filayaa in magaalada caasimadda ee Muqdisho ay soo gaaraan wafdiyo ay hogaaminayaan madaxweynayaasha Jubbaland iyo Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo Axmed Madoobe kuwaas oo iyagu Muqdisho u imaanaya sidii ay wada hadal ula gali lahaayeen madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo kadib markii ay qaadaceen shirkii Dhuusamareeb 3 ee lagu soo gabagabeeyay caasimadda dawlad goboleedka Galmudug. ilaalada madaxweynaha Puntland oo ay ku jiraan xubnaha maamuuskiisa ayaa iyagu goor sii horeysay soo gaaray Muqdisho. waxaana la filayaa in madaxweyne Dani uu ku soo xogsan doono wafdigan hordhaca u ah ee soo gaaray Muqdisho ee dawlad goboleedka Puntland ayaa waxay caddeyn u yihiin in maanta madaxweynaha dawlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani uu isaguna Muqdisho soo gaari doono. golaha ammaanka ee qaramada midoobana waxa ay war ka soo saareen noocyada doorasho ee Soomaaliya ee 2020-2021. qaraarka ka soo baxay golaha ammaanka ee qaramada midoobe kaasi oo sharciyadiisa lagu kordhiyay xafiiska UNSOM ayaa sidoo kale waxa lagu taageeray ama taageero loogu muujiyay doorasho qof iyo cod ah oo ka dhacda Soomaaliya. qaraarka ayaa lagu sheegay in golaha uu soo dhaweynayo sharciga doorashooyinka Soomaaliya ee la ansixiyay bishii Febraayo oo ay ku qeexeen tallaabo muhiim ah oo horey loo qaaday. sharcigaas ayaa qodobada uu xusayo waxaa kamid ah in dalka ay ka dhacdo doorasho qof iyo cod. golaha ammaanka ayaa sheegay inuu taageerayo caawinaad la siiyo guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka ee Soomaaliya ee shaqadiisu tahay qabashada doorasho qof iyo cod iyadoo uu la shaqeynayo xafiiska UNSOS si loo qabto doorasho toos ah oo ay ka qayb gali karaan muwaadiniinta ugu badan si waafaqsan dastuurka kumeel gaarka ah ee Soomaaliya. waxa uu sidoo kale ugu baaqay dawlad goboleedyada dalka inay u ogolaadaan guddiga madaxa bannaan ee doorashooyinka qaranka inay si xor ah u gaaraan maamul goboleed kasta ilaa heerka ay u baahan yihiin si ay u hirgeliyaan nooca doorasho ee la isku raacay. inkastoo golaha ammaanku uu muujiyay inuu taageerayo Soomaaliya in laga qabto doorasho qof iyo cod
haddana waxa uu dhowr jeer ku celceliyay muhiimadda in hanaan kasta oo doorasho uu noqdo mid ay ku wada qanacsan yihiin dhammaan saamilayda siyaasadeed ee dalka ka jirta. ugu dambeyntiina kumaandooska Soomaaliya ayaa howlgal qorshaysan waxa ay ku dileen xubno ka tirsan al-shabaab kadib markii ay howlgal ka sameeyeen wadada xiriirisa Muqdisho iyo Jowhar. ciidanka xoogga dalka gaar ahaan ururka afraad guutada 16aad ee kumaandooska Danab ayaa howlgallo waxay ka sameeyeen wadada isku xirta magaalooyinka Jowhar iyo Muqdisho. howlgalkan oo ahaa mid lagula dagaalamay al-shabaab oo si dhuumaaleysi ah shacabka ugu dhibi jiray inta u dhaxaysa Muqdisho iyo Jowhar ayaa waxa ay sheegeen ciidanka kumaandooska Soomaaliya inay halkaasi ku dileen al-shabaab qaybo kamid ah. ciidanka dawladda ayaa sheegay intii howlgalka wadeen inay dileen xubno sarsare oo kamid ah dagaalamayaasha al-shabaab. taliyaha ururka afraad guutada 16aad ee kumaandooska xoogga ee Danab ayaa sheegay in intii ay ku guda jireen howlgalka ay wadada ka soo saareen miinooyin al-shabaab ay geliyeen inta u dhaxaysa degmada Balcad iyo magaalada Jowhar ee xarunta dawlad goboleedka Hirshabelle. wararkan warar la mid ah saaxiibada aynu jecelnahay inta mar kale ku kulmayno waa dhamaanteen isku duubano idile sidaas iyo nabadgelyo.